ka takhaluseen oo ay dileen boqolaal Maraykan iyo Israa'iiliyiin wixii dhacay waxa ka warbixiyay afhayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan haddaba telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen inay dileen boqolaal Maraykan iyo Israa'iiliyiin kadib markii Iiraan ay ka jawaabtay weerarka gardarrada ay lagu soo qaaday afhayeenka xarunta ciidamada ee liiraado Khaatimul Anbiyaa ee taabacsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa shir jaraa'id qabtay wuxuuna sheegay in ciidamada Iiraan ay fuliyeen jawaab military oo ballaaran waxaana uu sheegay weerarka gardarrada uu ku tilmaamay inuu ahaa mid cadowtinimo ah ay Maraykanka iyo Israa'iil aroortii saaki oo sabti ku soo qaadeen Iiraan waxaana uu sheegay weerarka inay kaga jawaabeen iyaguna inay ka takhaluseen oo ay dileen boqolaal Maraykan iyo Israa'iiliyiin afhayeenka ilaalada kacaanka Iiraan hadal uu saxaafadda ugu talagalay oo video oo la baahiyay ayaa waxa lagu sheegay in Iiraan ay bartilmaameedsatay meelo kala duwan waxaana uu sheegay in Iiraan ay ku tilmaantay Washington iyo Tel Aviv inay fahmi doonaan luqadda iyagu ay yaqaanaan taasoo ay Iiraan iyaduna ay wax ugu qori doonto